السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halka aad naga daawanaysaan waa tusmashow.com. haddaba barnaamijkan taariikhiga waxaan kaga hadli doonaa soomaalida ku nool North America, qaasatan magaalada Minneapolis, Minnesota. 1990kii markii dagaalka sokeeye Soomaaliya ka qarxay, dad badan oo muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa ku nafwaayay, dad badan oo kalena way isaga soo qaxeen wadankii oo waxay qaxooti ahaan isaga soo dhiibeen wadamada Yurub iyo North America. haddaba dad badan oo Soomaali oo qaxooti ah ayaa waxay ku nool yihiin magaalada Minneapolis, Minnesota. intee qof ayaa ku nool magaalada Minneapolis? tirada saxda ah lama oga, balse estimate la sameeyay 2000kii Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis, Minnesota waxaa lagu qiyaasi karaa 10,000 ilaa 50,000. dad badan oo Soomaali ah ayaa waxay ku nool yihiin county-ga Henry County la yiraahdo ee Minneapolis. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay kala kulmeen caqabado kala duwan oo dhaqanka iyo nolosha wadankan Mareykanka. Soomaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis, Minnesota waxay ku leeyihiin ganacsiyo aad u fara badan sida dukaamaha, maqaayadaha, meelaha kliniga kumbuutariyada. haddaba dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis, Minnesota waxay fursad qaali u heleen inay ka faa'iideystaan sida ay dadkii hore oo wadankan usoo hayaamay ee jaanibka ah ee ayaguba uga faa'iideysteen. haddaba magaaladan oo ah magaalo aad u waasic ah isla markaasna dhismayaal qurxoon leh oo ka mid ah magaalooyinka Mareykanka meelaha ugu horumarsan, ayaa dadka Soomaaliyeed ay ku nool qaabab kala duwan oo noloshooda fikirayn karta ayay ugu nool yihiin. That's one of the reasons ay Soomaalidu ugu badan yihiin magaalada waxaa ka mid ah basaska oo sida normalka ka shaqeeya. dad badan oo aan awoodin inay travelers qaataan ama dad badan oo aan jeclayn inay baabuurta kaxeeyaan ayaa waxay doorbideen in magaalada kusoo guuraan Soomaalida kale ay ku nool ay kula noolaadaan. waxaa fursad qaaliya meesha ka helay dhalinyarada ku nool magaalada Minneapolis, Minnesota oo inta badan helay waxbarasho free ah, mid jaamacadeed iyo mid waxbarasho basic ah. haddaba mar aan la kulmay dhalinyarada ku nool magaalada Minneapolis ayaa waxay noo sheegeen in fursad qaaliya heleen, fursadoodana ay ka faa'iideysan doonaan ugana faa'iideyn doonaan dalkooda iyo dadkooda hooyo. haddaba daawadayaal barnaamijkan oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan tusmashow.com. barnaamijkaas wuu nooga yahay sidaa iyo sarati dambe oo xiiso leh daawadayaal.